السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتو كسو دوادا جانالكا قيبتاني waa muuqaalkii labaad ee password validation. qaybtii hore waxaan ku soo sameynay HTML-ki CSS-ki. qaybtani waxaan xooga saari doonaa JavaScript-ki. daawasho wanaagsan. magacaygu waa maxamed maxamuud. channelkani waa caaqiltay. haddii aad ka mid tahay marka baahda xiisaysa teknolojiyada sida codinka, fadlan ha iloobin inaad channelka subscribe saartid. haddii aan usii gudubno marka muuqaalkeena maanta, intaan u gudbin marka qaybtii JavaScript-ga, waxaan rabaa waxyaabo yaryar oo aan ka bedelno loogu baahan yahay qaybtani CSS-ka. haddii aadan daabanin marka muuqaalkani kii ka horeeyay, way kugu adkaan doontaa marka kan inaad la qabsatid. waxaad isku daydaa marka inaad soo daawatid part 1-kii oo muuqaalkan aan ka sameynay. linkigana waxaan idin soo gelinayaa qaybta cardka iyo qaybta description-ka. haddii aan kor u laabto kale sectionkan meeshan aan ku qoro kale message oo kale displaynan comment ayaa ku jiro, marka commentiga ka bixi. waxaa kaloo jirto main progress oo kale background color ayuu lahaa. background colorkaasina inaad iska gelisid comment kor haddaad usii baxdid oo kale qaybtan ay ku qoran tahay oo kale mainka iyadana displaynan oo kale comment ayaan geliyay marka hadday soo sameynay commentigana waa inaad ka bixisaa. qaybta aan ugu magac darna marka form iyadana wuxuu lahaa border oo aan colorkiisa silver aan ka dhignay. marka waxaan dareemayaa inuu aad u adag yahay marka oo color oo aad u soo muuqanayo inuu yahay. markaas wax yar oo daciif camal oo u noqdo RGBA colorka soo koobiyay ku paste gareey marka soo color macnaha border khafiif ah oo noqdo kale. waad aragtaan marka hadda color khafiif ayuu noqday oo mirrorka ama miraayada raacsan camal ayuu noqday. okay, intaasi CSS-ka waaye. HTML-kana haddaan usoo laabano kale waxaad tagtaa marka meesha ay ku qoran tahay defta kalaaskiisa uu yahay message. waad ogeedeen ereygan ayaan gashanay. hadda marka waa inaad ka tirtirtaa. waxaan kasoo geli doonaa marka JavaScript-ga. marka hadda empty ka dhigo marka. okay, waxaad kusoo laabataa marka input-ka. waxaad wacdaa marka on input dheh, and then waxaad wacdaa function loo yaqaano hobby. functionka markaa call gareysid waxaan kasoo build gareyn doonaa marka qaybta JavaScript-ga. waxaad kaloo sameysaa halkan ay ku qoran tahay type-ka oo password-ka ah. waxaad ka dhigtaa marka text si aan u aragno waxyaabaha aan soo gelinayno waxay yihiin. waxaad kaloo bedeshaa auto complete kale off ka dhigo si uusan ku qasin. okay, intaasina waa HTML-ka. hadda waxaan si toos ugu gudbaynaa marka qaybta JavaScript-ga. okay, waad aragtaan waxyaabo yaryar ayaa noo diyaarsan variable oo qiimo yaryar noo hayo. variable-ka koowaad oo kale hadda waxaan soo wacnay ama aan call gareynay message dift la dhahaye. mid ka hooseysana waxaan soo call gareynay password-kii oo qaybtii input-ka ahaay. kan ka hooseeyana waxaan soo wacnay mainka oo ahaay qaybtii progress-ka iyo waxyaabihii ay ku jireen. haddii aan hoos usoo dego kale waxaa igu diyaarsan variable oo ii haaya marka qaarkooda xarfa ay ii hayaan ama word ama eray. kuwa kalena waxay ii midka ka hooseeya marka wuxuu hayaa asagana colorki wordka iyo colorki wordka iyo colorkiisa. waad aragtaan qaybta kusii xigtana waxaa loo yaqaanaa regular expression. regular expression-kana marka waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha searching oo kale ama inputska laga soo geliyo oo kale in lagu validate gareeyo. maadaama anaga hadda marka password-keena aan u baahan nahay in aan validation aan u sameyno, waxaan isticmaalnaa marka expressionadan yaryar oo aan kasoo sameyno marka regular expression-ka. haddii aad u baahan tahay marka regular expression iyo information kale waa search gareysan kartaa. haddoo kale variable-ka koowaad oo aan ugu magacaabno marka week inuu yahay waxaan dhahnoo kale hadduu input-ka qofka ama userka input-ka soo gelinayo waxa uu soo geliyay hadduu ku jiro small letter, waxaan ku xiriirinay calaamadan or oo u taagan tahay ama. marka muxuu kaloo soo gelinayaa oo kale A to Z oo capital letter ah ama uppercase ah haddii aad ka heshid oo kale, ama waxaad ka hesho kale or kale ayaan halkan geliyay 0 up to 9 oo nambarada caadiga aan aqaana ah. kadibna inputkiisa hadduu dhan yahay oo kale 4 god. at least inta aad u baahan tahay inuu inputkaas ka koobnaado kale waa inuu 4 ahaado. kadib markuu password-ka oo qofkaasi soo geliyo kale
waxaa loo yaqaanaa ayaan dhahnay week. qofkii oo kale mathalan wuxuu iska soo geliyay 4 xarfood oo small letter oo soo geliyay ama lower case ah, waxaa leeyahay passwordkaaga week waa 1 ilaa 9 ayuu 4 martiri, waxaa leeyahay passwordkaaga week waa. adiga macnaha ma ahan wax walba inaad saan loo samaynayo, aniga as fikradeeda ahaan sidaan ayaan u sameeyay. adiga waa la imaan kartaa marka wax sidaan ka duwan oo ka adag. variable kale oo aan medium ka dhahay, hadduu qofka soo geliyo wuxuu soo geliyay hadduu ku jiro A to Z oo uppercase ah, iyo waxaan isticmaalay markaani waxaa loo yaqaan AND gate oo loo baahan yahay marka orto macnaha mid kamid ah hadii true noqoto waxaani oo idil waxa soo bixi doona macnaha true ayay noqonaya. laakiin anta waxaa loo baahan yahay dhammaan waxyaabaha aad inta ka codsatid hadii laga helo oo kaliya ay true noqonaysa. waxaase ma u baahnideen marka inaan gadaal ugu laabto oo waxa laga yaabaa inaad iga badantiin ama iga badisaan. okay, waxaan dhahay kale hadduu userka oo macnaha qaybta passwordka hadduu soo geliyo A to Z oo uppercase ah iyo A to Z oo lowercase ah ama small letter, kadibna uu ku xijiyo 0 to 9 oo tiro ah, kuwaasoo dhan marka dhererkooda ama at least 4 number dhan ama 4 character haddii dhan yihiin waxaad dhahdaa marka medium. waxaana isticmaalay an markaan. okay, kan saddexaadna waxaa waaye waxaan u magacaabnay horta variable namekiisa ama memory allocation waxaa u bixinay strong. waxaan dhahnay marka haddii qofka passwordka uu soo geliyo hadday ku jiraan marka A to Z oo uppercase ah iyo A to Z oo small case ah and 0 to 9 oo ah tiradii, waxaan kaloo ku darnaa marka special characters wax loo yaqaan sida $sign-kii kale ilaa an iyo calaamadihii oo idilaaday hadduu soo raacsiyo mid kamid ah, kadibna dhererkii oo macnaha inputka uu soo geliyay ama at least 4 character haddii dhan yihiin waxaa dhahay strong waa dheh. macnaha passwordka kan dambe waxaa laga helay waxaa kusoo ziyaaday special character wax loo yaqaan. sidaas ayaan waxaan ugu magacaabay marka inuu yahay password adag. intaasi marka regular expressionki waaye. haddii aan u gudbo marka qaybta codingka iyo sida aan u validate garee lahayn marka hadda ayaan samaynaynaa. okay, ugu horeen horta waxaan samaysanaynaa function yar oo shaqo yar noo qabanayso marka waxaan ugu magacaabo marka progress parameterkan dhexdiisa waxaan ku baas gareeyay marka color, waxaan kaloo baas gareeyay word, and then function inside waxaa ku qoran marka message kamana waxaa waaye variable-ka aan kor kusoo samaysano oo aan ka wiceynin defta loo yaqaan message. okay, innerkiisa marka waxaad ku qortaa word wax loo yaqaan. wordkan hadda ma la soo baas gareyn, laakiin functionka kale oo hubay argument ahaan ayaa loo soo gelinaya. marka qaabka u shaqeynayna waa arki doonaa. marka waxaa kaloo samaysaa marka message.style.color equal color baas garey. marka colorkaani waxaa waaye function kale ayaa wuxuu qaadan lahaa ama codekiisa color codekiisa ayaa laga soo argument ahaan ayaa loo soo gelinaya. marka waxaa kaloo samaysaa var oo aan ugu magac daro marka main progress equal mainka waa marka oo kor ayaad ka soo samaysaa hadda xasuusatid .children. waxaa rabaa marka progresska marka sidaad ogeedeen hadday wuxuu ahay progress 1 2 3 ilaa iyo 3 ayuu ahay. marka waxaa rabaa mid walba position index ahaan inaan u access gareeyo. marka okay, main progress dheh indexkiisa oo yahay 0.style background color baas garee. marka colorka macnaha uu qaadan lahaa waa okay. labada kale marka maadaama oo indexka 0 ka bilaabahayo ilaa iyo lama bast garee marka inaa ku gareysid. markaan intaan waan ka dhamaanay marka functionkani waxaan u laabanaynaa marka functionkeena weynaa hubay aan ugu magac darnay. marka function hubay waxaan ka gool gareyna waa ogeedeen inputka. marka functionka ayaan sameynaynaa marka hubay parameterkiisa empty ka dhig, and then waxaad ku dhex qortaa marka message.style display block dheh. waxaan u leeyahayna waxay tahay waxaan display block aan u leeyahayna waxay tahay hadday CSS-ka displaynan ayaan ka dhahay waad arkayseen. okay, mainkan marka asagana sidoo kale waaye display block ka dhig oo waayo hadaanan ayaa ka dhigtay. okay, marka waxaan sameynaynaa marka conditionki marka fd parameterkiisa waxaad gelisaa password geli oo macnaha password inputka waaye, value la soo geliyo .value.match waxaa method waaye taasoo inoo controlayso marka ama noo qabanayso inputka waxaa stringiga aan inputka aan ka soo gelinay iyo waxay isku eegaysaa oo kale regular expressionka oo aan halkaan ku baas gareyn doono sida strong oo kale. strongiga waxay fiirinaysaa marka waxyaabaha uu farayo, kadib waxay sii jeegareynaysaa passwordkii qofka soo geliyay waxyaabahaasi in laga helay iyo in kale.
macnaha haddii aan laga helin markaasi conditionka ma shaqeynayo oo macnaha maran garaysmayo maxaa yeelay matchka ayaa waxay leedahay marka conditionkan maran garoow kara ama false waa okay marka waxaa sameysaa ayaan leeyahay marka password dot style borderkiisa waxaa ka dhigtaa ayaan leeyahay marka hexadecimal codekani waxaan rabaa passwordka colorkiisa inuu green ahaado camal okay marka functionkii progress ayaa aan ugu magac darna marka oo hoos inuu yaalo ayaa halkaani ka call garaynaya marka progress ayaan dhahay argumentii koowaad aan baas garaynayo waxaan dhahayaa scalar waxaan u leeyahay haddii aan variablada kor ku xuso kale scalar waxaa loo yaqaanay kalarka cagaarka oo kale okay kibacdi wordka ayaan u baahanaha marka oo strong ahay asagana argumentii ahaan ayaan u baas garaynaya marka asagana waxaa loo yaqaanaa s variableka s ayaan dhaha markaas okay hadda marka functionkani wuu soo qaadaya marka argumentiyada loo soo baas gareeyay meesha parameterka oo progresska color meesha laga ahay wuxuu ku shubayaa s color koodkiisa meesha word kale parameterka laga dhahay wuxuu ku shubayaa s taasna waxay wadaa wordka strong ayay wadaa kadib sidaas ayuu u shaqeynayaa marka labadan function okay waan test gareynaynaa marka waad aragtaan marka wuu shaqeeyay hadda kuwa kalena waa la mid camal else if marka waxyar hexadecimal code colorka iyo waxyaabahaas ayaan ka bedelaynaa marka kan hore copy gareysa marka ku paste garey else if markaas then colorka ka bedel meeshan aan ka dhahay marka s color iyo s waxaad ka dhigtaa marka m color iyo m asagana waa testi gareynaynaa waad aragtaan wuu shaqeynayaa then qaybta kale ayaan usii gudbaynaa marka kalna sii koobiyeysa marka si oo macnaa waqti badan inooga qaadanin paste garey marka hexadecimal colorkiisa marka kusoo paste garey asagana okay meesha aan m color aan ka dhahnay iyo m asagana waxaad ka dhigtaa w color iyo w marka waxyaabahan wax macnaha variableka markaan u bixinay ayaa waxaan ka dhigay waxyaabo soo dhadhaweyn karo macnaha mar walba oo aanan u baahnayn qoritaan badan oo kale ayaan ka dhigay okay asagana waad aragtaan wuu shaqeynayaa saddex condition marka waan sameynaa hadda waxaa inoo dhiman marka waxyar hadda aan idin tusoo kale waxaa halkan ka jira marka cilad yar oo ah colorkii markuu soo bandhigo ama progresska ama passwordka noocoo noqday markuu soo bandhigay macnaha haddii la tirtiro stringii ama waxyaabihii la soo geliyey ama ay ka yaraadaan oo kale 4 character weli wuxuu sheegayaa inuu weak yahay annagana waxaan dhahay go'aankii waxaad qaadataa markaad haysatid 4 character marka meeshan waad u jeedaa marka error ayaa ka jiro asagana waa xalin doonaa waxaad sameysaa marka else if marka tiraad kibadi parameterka waxaad ku baas garaysaa marka password.value equal haduu la mid yahay marka waa macnaha empty haduu yahay ama or kadib password.value lengthgiisa haduu yahay oo kale less than 4 waxaan leenahay marka soo koob garaysa marka message-ki iyo main-ki oo blogga ku ahay ayaga markaas waxaad ka dhigtaa ayaan leenahay marka labadoodaba nan password style borderkiisana waxaad ka dhigtaa marka ayaan leenahay silver mid ah oo sidii originalka uu celi camal waa okay intaas ayaan ku soo dareynaa marka hadda ayaan test gareynaynaa waa arkaynaa waad aragtaan marka hadduu ka yaraadee marka 4 wuxuu sameeyey progress sectionkii inuu display nan ka dhigay okay sectionka qaybta ugu dambeeya marka conditionka waxaa leenahay marka waxyaabahan oo idil markii ay soo ful waayaan oo kale macnaha soo ran gareysmi waayaan else ayaan leenahay marka message-ka iyo main-ka nanba ha ahaadaan javascript-ga marka intaas ayuu noogu egyahay marka waa test gareynaynaa waad aragtaan marka sida u shaqeynayo marka muuqaalkeena marka halkaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa marka haddii aad ka heshay marka muuqaal la wadaag marka asxaabtaada kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.